wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Hinda Jaamac Gaani oo bariyahanba ku sugnayd gobolka Sanaag isla markaana deegaanka Celif u joogtay ka qayb qaadashada soo afjarida colaadda labada beelood ee deegaanadaasi ku dhexmartay ayaa soo gaadhay xarunta magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergabo waxaana wafdan wasiirka laga hortagay duleedka galbeed ee magaalada Ceergabo iyadoo soo dhaweyntadan ay ka qayb qaadanayeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee gobolka Sanaag iyo marti sharaf aad u tiro badan kadib markii wafdan wasiirku halkaas soo gaadhay waxay mid go'aan qaadeen mas'uuliyiintii u taagnaa soo dhaweyntooda doonaysa u koor gasho xaaladda gobolka Sanaag isla markaana doonaysa bal wasaaradii maadaama ay gobolkii soo dhex gashay inay waayaheeda iyo wixii ka jiray shaqadu soo socota ay si aragto waxaan leenahay ku soo dhawow sacaadada wasiir Hinda Jaamac xirsi gobolka Sanaag welcome anigoo ku hadlaya afka haweenaha gobolka Sanaag waxaan halka maanta ku soo dhaweynaynaa wasiiradayada qaaliga ah Hinda Jaamac Gaani oo aan leenahay soo dhawow aad iyo aad baan u faraxsanahay hambalyaanu leenahay waxaanu leenahay wasiir ku soo dhawow gobolka Sanaag iyo haweenkaagii Rahmaan Rahiim waxaanu soo dhaweynaynaa oo isugu nimid halkan wasiirka arrimaha bulshada iyo qoyska wasiir Hinda Jaamac Xirsi oo ku soo dhaweynayna gobolka Sanaag waxaanu leenahay soo dhawow haweenkii gobolka dawladii shaqaalihii dawladda cid kasta diyaar bay ku tahay soo dhawow wasiir waa inaan halkan ku soo dhaweynayno wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Hinda Jaamac Gaani waxaanu ku leenahay wasiir gobolkaagii dadkaagii rag yar iyo weyn waxaanu diyaar maanta ku nahay aan ugu faraxsanahay gobolka Sanaag sharafta weyn aad ka qaadatay soo daminta shaqada Celif weyn ee labada beelawaalaha ayaa u timi doorkii aad ka qaadatay runtii mid waana weeyaan wasiirka aanu leenahay ku soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow degmada Ceergabo aad baan ugu faraxsanahay inuu wasiirku noo yimaado isagoo degmooyinkii kale muddo dhowr cashaa ku sugnaa wasiirad waxaan leenahay soo dhawow boqolkiiba boqol ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergabo oo hadda aad soo gashay aad baan kugu soo dhaweynaynaa waan ku mahadsan tahay hawlaha aad ka soo qabatay shaqada Celif ka dhacday oo aad afar maalmood hadda ku hawlaneedeen gabagabadina waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Hinda Jaamac Gaani oo ka warbixisay ujeedada socdaalkeeda waxaan u mahad celinayaa bulshadayda qaaliga ah ee ku dhawaad 20 kilomitir toban waaga bariyay ee aan ogahay Sanaag inay jawigeedu yahay jawi qurxoon oo aad u qabow isu soo xilqaamay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan imi gobolkaygii oo aan joogay maalmahana gudihiisa ku sugnaa maantana aan soo gaaray magaalada madaxdii sidaad ka dhawaajiseen waxaan u imi inaan ka qayb qaato wixii igaga wajahan shaqaaqada ka taagan beelaha walaalaha ah ee degmada Celif weyn alxamdulilaahi rabbil caalamiin sidaad la socotaan shirku shalay buu furmay wuxuu runtii u socdaa si aad u qurux badan oo lagu diirsado oo isafgarada oo nabadgelyo ah maadaama aan soo gaaray gobolka Sanaag sidii aan xilka u qabtay ee dawladda cusub ee hormuudka uu ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu xilkan igu magacaabay na aanan u soo gaarin gobolka Sanaag oo aanan u imanin inaan soo kormeero wasaaradahayga meel kasta ay ku yaalaanba waxaan door biday waqtiga oo aad u adkaa inaan gobol walba marka aan shaqo u tago kaga faa'iideysto inaan wasaaradeydana si gaar ah u eego marka taas baan u imi ugu dambeyntiina waxa wafdan loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceergabo iyadoo kormeer dheendheena ku soo martay xarunta maamulka gobolka Sanaag iyo sidoo kale wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee gobolka Sanaag Barkhad Maxamuud Gadi Bulsha TV magaalada Ceergabo